السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxa weeye 2 bisha afraad ee 2021 waxa aynu halkan ku bilaabi doonaa casharo taxana ah oo grammarka Englishta iyo magaranaysa yani Englishta lafteedaba maxay ku saabsan marka casharo gaaban bay noqon doonaan oo aan ugu talagalay in aan maxay uga faa'iideeyo ummadda Soomaaliyeed ee jecel inay Englishta siro gaaban maxay uga faa'iidi karaan siro degdeg marka casharka koobaad ee grammarka ayaan ku bilaabaynaa marka grammar saasad qoraysaa isla kelmadda lafteeda waayahay dad baa maxay halka ka dhiga haddii aad sida u qorto grammar halkaas tahay wuxuu noqonayaa proper noun yani kama hadlaysid grammarka laftiisa kama hadlaysid waxaad ka hadlaysaa shay kale oo la xiriira grammarka maarta marka maxay saas weeye waxa magaranaysa halka ka muuqata inay halkaas tahay tahay marka waxaan ka bilaabaynaa cashar beginner kana saas u qoraysaa beginner America beginner marka waa bilow kaasina waxa weeye qawaacida ama masalan naxwaha maxay Englishta waayahay taas waa taas casharka ugu horreyn ku bilaabana waxa weeye parts of the speech right parts of the speech waxa aan uga jeednaa qaybo ayuu qaybsami karaa maxay hadalku yani mesela inaad tiraa magacu yaal iyo magac iyo mesela ficil iyo sifo ama maxay arfeeb waxyaabahaas oo dhan garanaysa iyo kuwa interjectionka iyo conjunction iyo marka way badan yihiin ilaa 9 ilaa 8 noqon karaan laakiin inta ugu muhiimsan hadda maxay soo qaadanayna oo ugu horreysiinayno noun number 2 waxaan kala ku xigsiinaa pronoun waxaan kala ku xigsiinaa verb way marka nounkaasi waxa weeyaan magacaasi mid xayawaan buu noqon karaa mid bini aadan buu noqon karaa mid shay buu noqon karaa xataa fikrad buu noqon karaa Soomaaliya waayahay pronounku waxa weeye magacu yaal sida masalan isaga iyada inaga markaan isaga iyada inaga adiga iyaga fahamtay marka yani intaas oo maxay siyood baan u sameyn karayaa magaranaysa magacu yaalka verbka waxa weeye waa ficil marka ficilkaasi wuxuu ku tusayaa fal la sameeyay fal ayuu ku tusayaa la sameeyay ama la sameyn doono mustaqbal ama la sameyn doono ama adu tisoo doono dhacay laakiin waa ficil meesha ficil ba ka muuqda marka waxa aan ku bilaabayaa ka ugu horeeyo noun noun wuxuu noqon karaa kelmad sheegaysa qof word that describes person animal thing or idea يعني waa kelmad maxay aad ugu yeeri karto ama maxay aad ku qeexi karto qof sida mesela cali oo kale ama mesela yani asli oo kale marta ama aad xayawaan ugu yeeri karto sida cat oo kale ama maxay snake oo maska ah cat oo bisada snake oo maska waxaad kale ugu yeeri kartaa shay sida mesela chair kursi ama fan marwaxad waxaad kale ugu yeeri kartaa fikrad sida mesela knowledge oo kale marta knowledge marta yani aqoon marka nounku kaas buu magaranaysa noqonayaa waayahay number 2 waxaa jirta in aad magaranaysa qaadan karto pronoun waxaan nidhi waa magacu yaal waxaad oran kartaa mesela hebel oo kale ama isaga ama iyada ama mesela inaga ama shaygaas magaranaysa waxaad maxay magaciisa adoon sheegin baad
استعمال كرتا كلمة pronoun waxaa kamid ah مثلا I aniga inaan idhaahdo aniga سمعت فيديوga dad bows yar saarto kolba waa qoran kartaa magaranaysa we inaga maanta I we you adiga maanta you adiga they waa iyaga سمعت way waxa jirta inaad qaadan karto saddex kale oo ah he isaga she iyada it shaygaas masala shayga aad sheegayso ama xayawaanka aad sheegayso xayawaankaasi dee lab iyo dhadig buu noqon karaa waayahay shaygaad sheegaysaa lab iyo dhadig buu noqon karaa maarta laakiin shiidaas waa qof dumara hiidaasna waa nin weeye ayadu waa aniga oo adoo gabadha adoo nina waad iskaga hadli kartaa naftaada ku sheegi kartaa wiidaasi inaga wixii magaranaysaa laba qof gaadhaya ama kasii badan baa naftooda kaga sheekeyn karaa we youdaas adiga ayaan kula hadli karaa anaa markaa kula hadlayo anaga you amaba idinkaan idinkula hadli karaa yani mesela laba qof halka soo fadhiya haddaad tihiin you waan idin isticmaali karayaa oo idinku labadiina amaba qof keliya soo fadhiya karaa you daydaas waxaan u isticmaali karaa maxay dad fara badan oo meel jooga marka laakiin iyaga aan ka hadlayo magaranaysaa ka sheekeynayaan leeyahay iyagu waa noocaas ama iyagu waxaasay qabanayaan aan qof kalena dee markaa la hadlayo laakiin hadalkaygu ku saabsan yahay dad kale ayaan markaa isticmaalaya daydaas maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaan labadaas iyo kii ka horreeyey channelka like saar channelku hadduu bilow yahay waxaan doonayaa inuu channelkan weynaado oo si yaroo sahlan looga faa'iidaysan karo subscribe saar dad kalena u sii bandhig assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh